mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco iyo gudoomiyaha qaranka u qaabilsan ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay goobta laga dhisi doono bakhaarada raashinka qaranka kuwaas oo maayirka degmada Burco u hibeeyay in laga hirgeliyo egas bakhaaradii injida ee magaalada Burco. maayir muraadka Burco Barsaab Xamse iyo gudoomiyaha guud ee hay'adaasi qaran Faysal Cali Sheekh oo saxaafadda la hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay maayirka degmada Burco, xogayaha dawladda hoose iyo dhammaanba golaha deegaanka Burco oo goobtaasi ku wareejiyay Faysal Cali Sheekh. Bisha tahay 22 bishii afraad aanu joognaa bakhaaradii waaweynaa ee inji la oran jiray. waxaanu maanta runtii bakhaarada ilaa 19 intii wadanka la soo galay ilaa maanta waxa dad baa gacanta ku hayay, dadkaasina dad shacab ay haayeen. maantana si sharaf leh ayay maanta dawladahan loogu soo wareejiyeen iyagoo wax shuruuda ku xidhin. dadkaas shacabka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. sida wada ogsoontihiin dalka waxa ka dhacay hadii jeer abaaro aynaan waxba u dhiganin. qaranku wuxuu isla gartay iyadoo ay mas'uul uga tahay hay'adda NADFOR in qaranku helo kayd raashin meel u yaal si aafooyinka iyo dhibaatooyinka iyo abaaraha aynu meel wax inoogu yaalin. gobol walba waa la tagay, waxa gobol walba marka maayirkeedii iyo barasaabkeedii lagu amray in ay bixiyaan bakhaaro loo dhiso hay'ad. markii gudoomiyuhu noo yimi ee digreetada madaxweynaha ee uu noo keenay madaxweynaha nagu amrayo inaanu bakhaaro bixino magaalada ka bixino, waxay noqotay bakhaaradii injida ee dawladdu lahayd oo dad shacab ah oo intaaba deganaa la siiyay ay sharcina u haysteen inaanu iyagii u tagno dhaho bakhaaradii la siiyay waanu u baahanahay, dawladuna way u baahantay. markaas halkan waxaanu dhagax dhigaynaa bakhaarada in halkan looga dhisi doono kaydiyo oo hay'adda maaragtay kaydka qaranku ay ku kaydiso raashinka iyadoo aad ogtiin dhibaatooyinka inaga haysta kayd la'aanta waqtiyada abaaraha ama aafooyinku ay ka dhacaan qarankeena. waxay inaga caawin doonaan inaynu maaragtay ka maaranno waxyaabo badan oo hadda caqabad inagu ah waqtiga dhibaatooyinku ay inagu soo kordhaan. farxad weyn runtii waxaa noo ammaanta in ay maanta gacanta hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka inay maanta ku soo wareegto bakhaar. waxaan aad ugu mahadnaqayaa meeyarka degmada Burco oo runtii dadaal aad u fara badan. dhinaca kalena barsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa shaaciyay gudida qabanqaabada xuska 18 Maay isagoona shacabka ugu baaqay inay dareenkooda muujiyaan maalintaasi qaran ee 18 Maay. gudida u diyaargarowga 18 Maay ee gobolka Togdheer waxaan uga soo jeedinayaa gudida halkan aan ka xaadiriyay inay hawshooda u qabsadaan si hufan oo milgale. waa la tartamayaa, goboladu way tartamayaan insha Allah bidnillaahi baari. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaynu noqono gobolka koobaad inaynu noqono. Xabiib Eega Xasan, Universal TV, magaalada Burco.